Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Kusoo dhawaada mar kale iyo website-ka wax ka baro.net ee magaciigu waa Maxamuud Axmed Xaaji. Cashirkani waa cashir vocabulary, waa cashirkii toddobaad ee buugga. Waxaan ku baranaynaa everyday things, waxyaabaha maalmaha, waxyaabaha alaabta maalmeedka, alaabta caadiyan, everyday things, waxyaabaha maalinlaha ah, waxyaabaha caadiga ee nolol maalmeedka lagu isticmaalo ayaan ka hadlaynaa, ama waxyaabaha iska caadiga ah ayaan ka hadlaynaa. Tusaale ahaan oo kale, waxa ugu horeeya oo kale wallet oo kale. Wallet waa haween boorsada gacan qaadka weeyaan, boorsada dumarka isticmaalaan US waxay u yaqaanaan wallet, ayay u yaqaanaan. UK na waxay u yaqaanaan, ama Mareykan Ingiriiska iyo adduunka intiisa kale waxaa loo isticmaalaa purse, ayaa loo isticmaalaa purse. Marka waxa weeyaan waa boorsada gacan qabadka gabdhaha isticmaalaan, boorsada gabdhaha isticmaalaan oo mobilka iyo mataqaanaa waxyaabaha yaryar qalimaanka iyo strookada ay ku ritaan ayaa la dhahaa. midda yarta gacanta lagu qaato iyo midda garabka la surto maaha. Alright, American wuxuu yaqaanaa wallet, ayuu yaqaanaa. midda raggu isticmaalaan ay jeebka gashtaan lacagta ay ku ritaan wallet ayaa loo yaqaanaa. wallet marka ragga ayaa isticmaalo wallet. Mareykanka ma kala sooco, marka midkay dumarka isticmaalaan iyo midday ragga isticmaalaan isku si ayuu ula dhaqmaa, wallet ayuu dhahayaa. Alright, coins waa shilimaan, keys waa furo, and bottle of water waa dhalo biyo ah, apple waa tufaax, sandwich waxa weeyaan rooti iyo hilib la dul saaray, cell phone waa telephone ama mobile phone, labadu waa isku macno weeyaan, and camera waa camera, earphones waa bahalka dhagaha la gashto, tablet waa bahal mobilka ka weyn, laptopkana ka yar oo sida mobilka oo kale u shaqeeyo. Laptop waa laptop, pencil waa qalin pencilka, pen waa qalin qoriga, notebook waa notebook weeyaan, letterna waxa weeyaan bashqad weeyaan, bashqad ama fariin, bashqad ma ahan, envelope ayaa bashqada la dhahaa, warqada oo fariinta la iskugu diraya waa letter la dhahaa. Alright, newspaper waa journal weeyaan, magazine asagana waa sida journalka oo kale u shaqeeya, waxa weeyaan waa sida journalka kale u soo baxa, waa buug camal oo u samaysan yahay isbuucla ama bilo ayuu u soo baxaa, sheekooyin khaasana ayuu ka sheekeeyaa. Tusaale ahaan oo kale qaar muufiyada ka sheekeeyo, qaar ka sheekeeyo maxaa la dhahay ciyaaraha iyo wixii la midka. Novel waa buug caadi weeyaan, buug ama novel. Dictionary waa dictionary, ereyada laga akhristo, ereyada Englishka laga helo. Map waa map weeyaan, map waa qariirad weeyaan. Mirror waa miraayad. Toothbrush waa bahalka ilkaha lagu cadaysto. Umbrella waa dallad. Hairbrush waa bahalka tinta lagu brushto, shanla maaha laakiin. Planner waa qorshe, bahalka buugga qorsheynta ama diary, buugga qorsheynta weeyaan, ama waxyaabaha xusuusta iyo waxyaabahaas ayaa lagu qortaa. Eyeglasses waa ookiyaale. Sunglasses waa ookiyaalka qoraxda laga xirto. Necklace waxa weeyaan qoor xirashada ama kuusha qoorta lagu xirto. Watch waa saacad. Passport waa passport. ID waa ID card. Right, waa fahanteen aan rajeynayaa. Marka cashirkan aad buu u fududahay, waana cashir badiisa aad wada taqaanaan, sawirana wuu wataa, marka waad iska fahmi kartaan. Marka cashirka halkan ayaan kusoo gabagabeynayaa. Insha Allah u diyaar garooba cashirada xigo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.